tani waa qisooyinka kowniga ka dhaca oo la yaabka badan leh. waa qisooyinka runtii maskaxdaada marka aad sii eegto aanay si toosa ugu dhacaynin iyadoo waqti badan laga dhaadhiciyo mooyaane. waa haweeney Mauritaniada, waxa ay jirtaa cimrigeedu 50 sano. waxa ay nolosha la soo wadaagtay 55 nin oo ay mid walba soo guursatay. waxa ay ku nooshahay waddanka Mauritania. iminkana waxa ay musharaxad u tahay ama ay u taagan tahay inay guurkii 56aad isu sharaxdo iyadoo aan weli ka laabanaynin. waatan waxa ay ku nooshahay guri iska danyara. guryihii hore ee qadiimka ahaa waa laga yaqaanaa xaafadda iyo eeriyada ay ku nooshahay oo macruufay ka tahay. waxa ay guursatay 55 nin. markii lala sheekaystoo laga waraystay 55 nin iyo xaalaadkoodii, runtii waa ay ka sheekaysay midna walbana waxa ay sheegtay inay ka qaadato marka ay furaan warqaddii ay talaaqa. waxa ay sheegtay haweenaydanu ninkii ugu badnaa inay isqabeen 15 sannadood, halka ka ugu yarna ay isqabeen 3 bilood iyo 2 toddobaad oo keliya. waxa ay haweenaydanu carabka ku dhufatay in ay runtii jeceshahay in ay ka sheekayso 3 nin oo keliya, halka ay inta kalena jeceshahay inay xitaa xusuusteeda ay soo galaan. ay runtii ka murugooto xanaaq iyo walwal badanna uu soo maro. waxaa la odhan karaa waa tijaabadii ugu dheerayd ee qof bini'aadan uu noloshiisa ku sameeyo haweenaya marka ay nolosha la wadaagtay 55 nin oo mid walba dabeecad iyo dhaqan gaara uu leeyahay. waa daraasad, waa jaamacad, waa waxbarasho dhan oo buuxda oo wax lagu qaadan karo. waxay sheegtay haweenadaasi qisooyinkeeda la yaab kale ka mid ah in ay tiri 52 nin. marka aan hadalkooda maqlo waan murugoodaa oo raggii soo guursaday ka mid ah, halka 3 nin oo keliya aan jeclahay inaan ka sheekeeyo xikaayadahoodii iyo taariikhahoodii ama na soo kala dhex maray. waa arrin runtii in loo fiirsado u baahan marka ay 55 nin ay la wadaagtay oo ay 2 keliya ama 3 keliya ka xusto, inta kalena ay buuggeedaba ka saarto. waa hooyo macruufa, waa la yaqaanaa, 50 sano ayay jirtaa. xaafadda ay kaga nooshahay waa ka caan oo waa naagtii niman guursato ama guursiga badnayd. iminka waxay tiri waxaan u ahay diyaar inaan ninkii 56aad guursado. hadda hadduu taleefonkayga soo garaacana hore ayaan uga qabanayaa. ma waabin doono calaf xalaale hadduu ii soo galo, waana tijaabada waa sii wadayaa inta ay raggu iga maarmayaan. runtii waa arrin la yaab leh. waa arrin qisas iyo xambaarsan cajaa'ib aan adduunka koonka ka dhicin. sida aynu la wada soconno, gabadha Soomaalida ama qofka Soomaaliga ee ugu badan marka la yiraahdo naagta imise nin baa furay ama gabadhaas imise nin bay kala tageen, ta ugu badan waxa laga yaabaa inay tirsato 9 nin, hase yeeshee 55 nin marka ay marayso. waa arrin runtii yaabkeeda leh. waxaa barnaamijkan idiin soo gudbinaya anoo Cabdiraxmaan Muuse. halka aad kala socotaan waa TV-ga caalamiga ee Gaari Hostii. mar walba aad kala socotaan barnaamijyo xiiso iyo dardar leh oo aad halkaasi ka dheehataan. waatan waxa ay leedahay warqaddii ugu dambaysay hadda ninkii ugu dambeeyay uu siiyey ayaan gacanta ku hayaa, iyadoo gurigeeda iyo danaheeda aan wax muraada iyo wax dhibaato ay toona uusan ku haysan oo iskaga mashquulsan hawlaheeda gaarka ah. marta ma kanoo kale ku kulmi doona barnaamijkan oo kala waa qisooyinka runtii in la ururiyo u baahan, in laga taxadaro u baahan, in laga fiirsado u baahan, in la soo koobo ummadeena iyo bulshadeena loo soo bandhigo. waa qisooyinka u baahan runtii. qisada tan waxaad kala socotaan TV Gaari Hostii. fadlan share and like, sii gaadhsii asxaabtaada kale iyo bulshada inteeda kale. waa tan oo remote-keeda iyo TV-geeda isku daawanaysa.